hay-adda lagu magacaabo LWF oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dadaab oo garab ka helaysa hay-adda caalamiga ee World Vision ayaa waxa ay xerada qaxootiga Xagadheere iyo Kaambico si toos ah uga bilowday diiwaangelinta dadka curyaamiinta maran howlo shaqo ku gaaray goobta ay ka socotay diiwaangelinta ayaa waxa ay indhahaygu qabanayeen dadyo fara badan oo leeman dhaadheer ugu jira sidii lagu diiwaangelin lahaa ugu horeyntii waxaan goobtaasi ku wareystay madaxa xarunta dadka naafada ah mudane Axmed Isaaq waxa uu inooga warbixiyay baahida keentay diiwaangelinta iyo faa'iidada ay u leedahay hay'adda LWF. Axmed waxaan shaqeeyay hay'adda curyaamiinta laanta LWF waxaan sameynay shalay ilaa maanta waxaan ku guda jirnaa tirokoob guud aan sameynay curyaamiinta taasoo aan u dan leenahay in markaan aan isticmaalno data profile oo rasmi ah ka soo bixino taasoo la isticmaali doono mustaqbalka si loo isticmaalo qofka curyaanka meesha curyaanka yahay iyo baahida jirto inaan soo ogaano programka waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda LWF oo doonaysa inay ogaato tirada guud curyaamiinta xerada ayagoo kala kaashanaya hay'adda UNHCR marka waxaan socon doonaa ilaa muddo 5 beri ah maalin walba waxaan sameeynaa 3 section shalay waxaan bognay A iyo B iyo C maanta waxaan sameeynaa D E F berito waxaan galeynaa GHI ugu dambeyntii ilaa Xagadheer aan ka bognay marka Xagadheer bognay kadib baa waxa la doonaa Kaambico sidoo kale waxaan la kulmay gudoomiyaha guud ee guddiga curyaamiinta mudane Faarax oo dhankiisa ku tilmaamay diiwaangelinta inay tahay mid ay wada sugayeen dadka curyaamiinta ee ku nool xerada qaxootiga Xagadheere iyo Kaambico anigoo ah jeemanka curyaamiinta Xagadheere Faarax Ali waxaan maanta halkan ka sii deynayaa in LWF ay la tirakoobayso curyaamiinta dhammaan ay tirakoobayso tirakoobtaas oo ah midaan u baahnayn si maartay wax lagu qabto curyaamiinta ama yar oo qabto ama adduunka ama hay'ado ay ugu qabtaan oo ayadoo aan u baahnayn inay maanta shalay baan tirakood bilownay shalay 3 shikshin baan tirakoobnay maanta 3 shikshin baan tirakoobaynaa saddexna waxaan tirakoobaynaa berito ilaa 5 maalmood bay soconaysaa tirakoobtaas waxay u dhacaysaa sidii loogu talagalay hal ruux lama dhaafayo ugu dambeyntii waxaan kaamirada TV-ga caalamiga ee Royal la dhax qaaday dadkii isugu yimid goobta diiwaangelinta waxayna dhammaantood iga warbixiyeen sababaha ay u yimaadeen halkaasi tirakoobkan horta waa tirakoob gaar u ah dadka naafada gaar ahaan xerada Xagadheere wuxuu la xiriiraa waxqabadka dadka naafada ah oo sidaan ognahay marka la rabo qofka in wax loo qabto waxa muhiim ah in tiradiisa la ogaado in baahiyihiisa noocyada ay kala yihiin la ogaado marka waxa weeye waxa la rabaa in la ogaado dadka guud ahaan tiradoodu intay la eg tahay si qorshayaasha waxqabadka ah yani loogu darsado waxa la doonayaa dadkan in loo sameeyo barnaamijyo ay ka mid yihiin xagga biyagelinta ay ka mid yihiin masqulaha marka waxa jiray qorshe hay'adan World Vision ay waday oo ah inay caawiso dadka naafada ah kadib markii guddiga iyo ay wada hadleen iyo dadkii doonayay inay caawiyaan oo hay'adda ka socday waxyaalo la isku afgartay waxa ka mid ah in tirakoobkooda la sameeyo waxaana jecelahay in arrintan daba joogto sidii loo ogaan lahaa tirakoobka xagga hay'adaha macruuf isbitaalka macnaha dhowr joor gaarisa waa liigay warqadii waan hayaa laakiin macnaha wax macaawinaha macnaha degdeg oo hadda wax ku dhaqmaana marka hadda waxaan ku leeyahay waa macnaha dibkaas macnaha ay haysto aan ka hadlo aan ka baxo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ciise Naxar Shibane oo ka mid ah guddiga dabagalka xuquuqda naafada maanta aad baan u faraxsanahay maadaama nala tirakoobayo tirakoobkaas oo aan aad uga rajaynayno kadib markii tiradeena la ogaado aan rajaynayno inaan wax badan aan maarta xuquuq badan ay nooga soo bixi doonto hay'adaha maadaama la ogaaday tiradeena inta ay la eg tahay Axmed Maxamed Kaarshe TV-ga caalamiga ee Royal gobolka Waqooyi Bari Kenya.